salaamay maxamed wuxuu jaseba waxa weeyaan kelmad Faransiisa oo macnaheedu yahay garan maayo weey waxa uu nin reer miyiga oo ayaa magaalada Djibouti yimid macawis gaaban buu iska xiran yahay oo alihiisu Saciid saga yahay waa nin soo shaqo tagay ayuu maxamed iska wanaagsan ba ma sha Allah iska qalbi wanaagsan oo waxa la wixii lagu yiraahdo qaadanay wuxuu yiri ninkii waxa uu ku soo horeeyay xaafad guudka la yiraahdo oo magaalada Djibouti waan gartay markuu guudkii uu yimid ayuu ku yiri dadkii waryaarahe guudkuna waa xaafad aad u qurux badan buu yiri si wanaagsan waxa uu yiri ayuu yiri war waxa soo guriya yaa leh ilaa nin soo shaqo tagay oo adduunku rabaa inuu wareystay si wanaagsan markaas la guur jaseba waa garan mayno uu ka tagay waxa uu yimid buu yiri suuqi ama faras magaalihii markaas uu arkay gawaadhi istaankii yaala oo sidaa isu wada daba taagan markaas uu war waxaan oo gaariya yaa leh markaas la guur jaseba ma garanayno markaas uu walleen ninkan jaseba waa nin tabcaday waxa dhigtamaal ninkan waa nin tabcaday talab jaseba kulli markii hore miyuu ka yimid jaseba dadka magaalada waxa ma qabsadaan aanon jaseba ayo kala noqon ilaahay waxa ay tilin jaseba uu ka tagay dabeeto wuxuu arkaba de jaseba buu haystaa mar hadduu intan guudkiina leeyahay waxaan oo gaariyaba leeyahay wax walba jaseba ba kulleeyay sax wuxuu tagay dabeetana meel axan lagu sameeyo axan qofku markuu dhinto si wanaagsan muxuu ahaa ducada laga daba sameeyo sax ayuu ducadii wax ka cunay markaas uu yiri alxamdulillah war dhargay يا لو دعين يا دنتي markaas ninkii ku jasaba ma garanay sawir markaas adduuyo ay xaalka mar haduu maanta ninkii jasaba ka hoyday adduuyo macna ma leh talo wixiisii dhul ahaa wixiisii gaaray talo wixii dhaxlaya jasaba markaas uu ku jasaba in sacaruuru ka tagay markaas la guud jasaba ma garanay marka waa sheekadii jaseba inoo soo diray Faysal Ahmed aad baad Faysal u mahadsantay waabaan ilmeyn sida muslimin ayaa maxamed waa aad iyo aad u